ويقلينو وجمعت لقوعي البحي براسما وجمعت لقوعي البحي براسما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan ku jirnay chapterkii koowaad waan soo dhameynay example-ladiisii iyo definition-nadiisii waa soo dhameynay hadda waxaan bilaabaynaa chapter 2 waana wuxuu la xiriiraa wave motion socodka hirka ayaan ka hadli doonaa waa yahay chapter 2 wuxuu la xiriiraa wave motion socodka hirka waxaan ka hadlaynaa marka hore wave muxuu yahay a wave is a disturbance wave hir waa labid oo vibration ama waa gariirka which travels through a medium kaasi oo soo dhaxmaraya medium ama dhextaal soo dhaxmaraya waa qeexitaan wave muxuu yahay waxaan ka hadlaynaa haddana types of waves noocyada hirarka number 1 waa mechanical wave hirarka la yiraahdo mechanical wave muxuu yahay mechanical waves are waves which propagate through a material medium through wuxuu soo dhaxmaraa a material medium matter ayuu soo dhaxmaraa through wuxuu soo maraa a material medium matter ayuu soo dhaxmaraa waa hirarka propagation ku sameeya ku baaha ayagoo soo dhaxmarayo medium dhextaal meel ay soo dhaxmaraan mechanical waves require material medium mechanical waveska waxay u baahan yihiin matter inay soo dhaxmaraan the following are mechanical waves waxaa kamid ah kuwan soo socda water waves hirarka biyaha sound waves hirarka codka spring waves moolada strain waves xargaha seismic waves dhulgariirada nooca labaad waxaa la yiraahdaa electromagnetic waves hirarka electromagnetic waveska ah hirarka birqabatada iyo korontada isku darsan ah electromagnetic waves maxay yihiin are waves waa hirarka which propagate kuwaasi oo ku baaha through waxay soo dhaxmaraan empty space meel eber ah macnaha matter uma baahna meel eber ah ay soo dhaxmaraan electromagnetic waves do not require material medium matter ay soo dhaxmaraan ma u baahna the following are electromagnetic waves waxaa kamid ah kuwan soo socda muxuu yahay radio waves hirarka raadiyaha infrared radiation kaaha casaan hoose infra waxa loola jeedaa hoose x-ray falaaraha x gamma rays falaaraha gamma visible light iftiinka aan wax ku aragno ultraviolet radiation kaaha cinab sare violet waa midab ka mid ah midabada cinab sare ayaa la yiraahdaa okay intaas waa example waxay u yihiin electromagnetic waveska hadda waxaan ka hadlaynaa wave motion socodka hirka ayaan ka hadli doonaa socodkooda marka la fiiriyo waxa loo kala saaraa labo waa transverse wave hirar isku dhex jira ama hirar gudban transverse wave muxuu yahay is a wave waa hirka which particles of mediumka uu soo dhaxmarayo dhextaalada uu soo dhaxmarayo move in a direction wuxuu u dhaqaaqaa jiho perpendicular jihadaasi oo ku qotonta to the direction jihada which the wave moves jihada hirka u socdo iyo particles of the medium ayaa waxay yihiin perpendicular way isu qotamaan perpendicular waxa loola jeedaa waxay sameeyaan 90 degree ayaa loola jeedaa
nooca labaad waxaa la yiraahdaa longitudinal waves hirarka dheerka ah longitudinal waves is a wave waa hirka in which particles of the medium dhextaalka uu soo dhaxmarayo move markay u dhaqaaqaan in a direction jiho parallel barbara la ah to the direction jihada which the wave moves jihada hirka u dhaqaaqayo hadda waxaan ka hadli doonaa characteristic of wave motion socodka hirka waxyaabaha laga rabo inuu yeesho waxa kamid ah velocity-ga keenan xarafkiisa waa v kan labaad waxa laga rabaa period waa kal xarafkiisa waa t frequency waa rakaadka xarafka u taagan waa f wave length dhererka hirka waxa u taagan lambda waa Greek letter waxa kaloo laga rabaa amplitude joog inuu yeesho xarafkiisa waa a phase jiha inuu yeesho ayaa laga rabaa waa xarafka u taagan waa v waa yahay properties of waves astaamaha hirka uu leeyahay waxa kamid ah rectilinear propagation baahitaankiisu waa mid toos ah xariiq toosan ayuu raacaa ayaa loo jeedaa reflection noqod ayuu sameeyaa refraction qalloocsan ayuu sameeyaa diffraction gadaalbaha ayuu sameeyaa interference isdhexgal ayuu sameeyaa waa yahay hirka marka la sawiraayo waxa loo sawiraa qaabkan oo kale wave marka la rabo soo leeyahay wave marka leeyahay soo loo sawiraa hirka meesha ugu sareysa waxa la yiraahdaa crest 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 dukan si jirana waxa leeyahay waa crest wali waa crest meesha ugu hooseysa waxa la yiraahdaa hirka trough ayaa la yiraahdaa meesha ugu hooseyso waxa la yiraahdaa trough meesha ugu hooseyso waxa la yiraahdaa trough marka fogaanta isku jiraan laba crest fogaanta isku jiraan waxa la yiraahdaa wave length ama laba trough fogaanta isku jiraan waxa la yiraahdaa wave length xarafkiisana waxa loo qoraa lambda ayaa la qoraa ama wave length ka xarafkiisa waa Greek letter waxa la qoraa lambda hirka wuxuu leeyahay bar oo dhexdhexaad ah ama equilibrium position ayuu leeyahay bartan x waxay la mid tahay 0 hirka waxa kale uu leeyahay waxa la yiraahdo amplitude-ka waxa waaye jooga amplitude-ka xarafkiisa waa amplitude ama inta ka xisaabi amplitude-ka waa kan amplitude ama waa kan waa yahay amplitude-ka ama waa kan marka hirka meesha u sareysa waxa la yiraahdaa crest meesha u hooseysa waxa la yiraahdaa trough distance-ga isku jiraan laba crest ama laba trough waxa la yiraahdaa wave length ama lambda ayaa loo yaqaanaa waxa kale oo ka rabaa inaan ka hadlo waxa la yiraahdo reflection-ka muxuu yahay kan waa derbi wave ayaa ku soo dhacay derbigaas wave ayaa ku soo dhacay wave-kaasi dib ayuu uga laabtay kaas waxa la yiraahdaa reflection waxa jira waxa la yiraahdo kan waxa la yiraahdaa reflection kan waa derbi waxa ku dhacay hir ayaa ku dhacay hirkaas markuu ku dhacay ma laabanin dibe wuu qalloocsamay kan waxa la yiraahdaa refraction wuu qalloocsamay wadadii saxda ahaa uu ku socday waa tan wadadii saxda ahaa waa tan wadadii saxda laakiin wuxuu sameeyay refraction qalloocsan kan wuu soo gudbay una qalloocsamay kan laakiin dib u soo laabtay waxa la yiraahdaa reflection waxa jira diffraction waxa la yiraahdo muxuu yahay shaygan wuxuu leeyahay meel daloosho meeshaas uu maraya hirka wuxuu maraya meeshaas hirka wuxuu maraya meeshaas slitkaas ama ayuu raadsanaya waxa leeyahay diffraction waxa way dib ma u laabanayo sida kan oo kale
mana dhex mari karo laakiin meel bannaan ayuu dhex mari karaa marka waxa leeyahay diffraction gadaal baah ayaa la gadaal baah kan waxa la yiraahdaa refraction qaloocsan reflection noqot magacyadaas marka wavelength amplitude ku waa sheegnay phase-ka two phase ayaa jiro laba jiha ayaa jiro crest iyo trough ayaa jiro oo crest-gana uu yahay meesha kore trough-kana uu yahay meesha u hooseyso marka hadda casharkeena maanta waxaan kaga hadalnay wave-ka ayaan kaga hadalnay hir muxuu yahay waxaan uga hadalnay hirka inuu yahay labid ama gariir ayaan ku sheegnay waxa kale oo ka hadalnay hirka imisu u kala baxaa typeskiisa mechanical iyo electromagnetic ay u kala baxaa mid walbana qeexitaankiisa waan sheegnay mechanicalka wuxuu u baahan yahay material uu soo dhaxmaro laakiin electromagnetic waveska uma baahna empty space ay ku socon karaa meel eber ah ay ku socon karaa waxaan ka hadalnay mechanical waveska laftooda way si kala baxayaan marka socodkooda la fiiriyo waxay u kala baxayaan longitudinal wave iyo transverse wave ay u kala baxayaan waxa kale oo ka hadalnay characteristic of the wave hirarka astaamaha laga rabo inay yeeshaan waxa kamid ah ayaan dhahnay velocity-ga waxa kamid ah dhahnay frequency-ga waxa kamid ah period-ka period hore aan soo aragnay waa kalka shigan meeqamar waqtiga time-ka period-ka wuxuu ka hadlayaa time taken waqtiga ay ku qaadatay hirkaasi waxa kale oo uu leeyahay wave length dherer hir ayuu leeyahay amplitude joog ayuu leeyahay phase jihooyin ayuu leeyahay laba jiho ayuu leeyahay waxaan ka hadalnay properties astaamaha uu leeyahay of waves hirarka astaamahaas waxaan ku sheegnay rectilinear propagation baahitaankoodu waa mid toos ah macnaha rectilinear waxa loola jeedaa waves travel in a straight line waveska waxay raacaan xariiq toosan ayaa loola jeedaa reflection noqoday leeyihiin dib ay u laabanayaan refraction qaloocsan ayay leeyihiin diffraction gadaal baah ayay leeyihiin interference isdhexgal ay leeyihiin interference-ga isdhexgalka waxa loo kala saaraa labo constructive interference iyo destructive interference constructive-ka waxa marka isdhisaayaan oo hal jiho ay iskula socdaan ama in phase markay yihiin jihadooda ay isku mid tahay destructive markuu yahayna mid isbaabiinayana markuu yahay markay yihiin out phase kala jiho ayaa la yiraahdaa interference-ga labadaas ay u kala baxaa constructive iyo destructive ay u kala baxaa marka casharkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh